hambaliyo Manchester City waxaan ugu hambaleynayaa guusha ay xalay gaareen. Taageerayaasha Manchester City meel walba aad joogtiin waxaan idin leeyahay hambaliyo. Rifrigiina iyo kooxdiina guula wada gaarteen. Yacni guusha Manchester City xalay gaartay rifriga oo keenay. Rifriga Manchester City ahaa taageerayaashooda ilaa iyo kooxda Manchester City guusha rifriga u keenay waan ugu hambaliyeynayaa. Waxaan leeyahay hambaliyo. Ciyaartan xalay Liverpool waxay muujisay tayo walbo ay ku guuleysato. Taageerayaasha kooxda Liverpool xalay uma qalmin guul daradan. Laakiin waxaa dusha ka saaray garsooraha ciyaarta. Labada gacmood in loo qabtay waxaa la madax ka garaac. Nin haddii labada gacmood laga qabto oo adna gacmahaada oo ku furnay ninka madax ka garaac lagu dhaha waa ogtahay waxa ka yeelan kartid. Marka maanta uma maleynayo taageere Manchester City inuu meel soo fadhiisto inuu dhahaya xalay waa guuleysanay. Ma dhihi karaan. Xalay guulana noo hibeeyey inay dhahan waa. Xalay guushan waa loo hibeeyey, rifrigana u hibeeyey. Marka waxay ahayd guul la siiyey. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool waxaan leeyahay hambaliyo. Kooxda guuleysatay waa idinka. Kooxda guusha gaartay waa idinka. Dunidoo dhan oo arkaysa ayaa Manchester City qaabteen. Taas bedelkeeda garsoorka Premier League oo go'aanku rabo sameynaya iyo sidoo doono wax ka yeelanaya shalayna muuqaal aan soo duubay waa aragtay. Waxaa dhahay garsoorka Premier League qofkay rabanay wadanayaan. Liigan waa musharax. Qofku rabo wadana, qofku rabo soo dhisaya, qofku rabona dhulka la jaraa. Laakiin taas ma ahan cadaalad. Liverpool xalay cadaalad loogama badin. Guusha saxda kooxda gaartayna waa Liverpool. Red card haddii la bixinayo ciyaarta markay 70 daqiiqo maraysay waxaa red card lahaa ninka la yiraahdo Marcos Gucci. Axadkan saxiix cusub oo hadda Manchester City la yimaado oo Crystal Palace ka yimaado. Qaladkan uu sameeyey wuxuu ku lahaa ama ku mutaysan karay inuu qaato red card. Laakiin rifriga meesha oo asiga red card ku bixin lahaa kooxda kale oo la raadi oo wuxuu la raadinayay Liverpool. Sidoo kale Szoboszlai asiga xitaa waxaa lagu sameeyey midan. Tan waxay ahayd red card kale haddii la bixinayo ama oo meesha red card in la bixiyo tahay. Tan waxay ahayd red card kale oo Liverpool mar kale ay qaadan lahayd kooxda kubadda cagta Manchester City. Taas oo Liverpool siin lahayd guul. Taas bedelkeeda kooxda kubadda cagta Liverpool waxaa laga diiday laba red card ama laba foul cad oo lagu sameeyey kooxda Liverpool oo u dhigantay inay red card qaadato Manchester City. Ma sameynin rifriga. Taas bedelkeeda wuxuu sameeyey midan uu red card ku bixiyey. Hadda de difference u dhaxay ma labadan qalad difference u dhaxeeya iyo qeex kara. Tin farqiga u dhaxeeya iyo qeex kara labadan. Tan red card lagu bixiyey tanna waa la saga socday. Marka labadan qalad waxay ku kala duwan yihiin oo midna red card loogu siiyey midna hore la saga socday yaa iyo qeex kar. Taas waxay bedelkeeda waxaa keentay in Manchester City ay soo dhisaan Premier League si ay ugu la dagaalamaan Arsenal maadaama ay Manchester City ka dhowdahay kooxda kubadda cagta Liverpool. Waxaana la diidayaa in Arsenal horyaal ay ku guuleysato. Laakiin Arsenal taas ma joojin doonto. Cid Arsenal wax ka qaban karta ma laha. Hadda Manchester City soo dhistaan iyo waxaa rabtid haddaa u samaysid iyo kulankan haddii rifri oo Manchester City taabaca waa ogaa rifriyaasha Premier League nin walba kooxu wataa. Wax cadaalad ka shaqeynaya meesha ma jirto. Next mid oo Liverpool taageera isqabanaysa ama mid Arsenal taageera idinkuna dhulka idin la jaraya. Manchester City haddii xalay lagu siiyey guushan taas bedelkeeda ma ahan hanna moodin inay awood leedahay Manchester City. City waa maskiin sanadkan tabcaan wayna ka taalaa. Guusha xalay lagu siiyey iyagu u dabaaldegaysa dad horyaal qaaday ama la arkay. Manchester City waxay u dabaaldegaysaa in horyaalkii ay ku guuleysatay waqtigan. Ha iloobin 6 points oo nadiif in laga saray weli.
hadda waa 6 dhibcood oo nadiif ah in la idinka sareeyo oo weli hogaanka Premier League Arsenal ay tahay ogaado meeshan sanadkan abooda lagu fadhiyaa haddii lagu soo dhisa iyo haddii lagu soo dhisin yaa Arsenal joojin karay meesha taagan tahay saa doontid usoo badi Manchester City laakiin Arsenal yaa ka badin kara oo Arsenal joojin kara waayo Arsenal oo istaagin soo dhawaan kartid Arsenalna ma ahan koox istaagaysa sanadkan way socotaa Arsenal koox istaagaysa ma ahan koox la istaajin karana ma ahan way socotaa Liverpool halay qaladkan laga galay referee walba oo caalamka jooga oo ka falceliyay nin walbana wuxuu sheegay tani inay tahay attack aadi lagu sameeyay kooxda kubadda cagta Liverpool oo garsoorka ciyaarta ku sameeyay qof walbana uu og yahay marka Liverpool halay waa loo qabtay Manchester City laakiin Arsenal yaa idin qabanay xitaa Arsenal hadii la idin qabta referee hadii qabta hata Arsenal yaa ka celin kare inay guuleysato hadii la qabta xitaa Arsenal inay guuleysato ma ka celin kartaa waayo Arsenal inay daafacato oo goolna dhalis referee ma ka celin kara referee Arsenal intaas ma ka joojin karo haddii idinka idin soo kobciyo oo idin soo riix ma aragta oo kor idin soo qaad Arsenal yaa joojin karay taaganta qof walba muuqaalkayga dhageysanayo muuqaalkan drive-ka gasha meel dhiga horyaalkan Peklis Premier League waxaan ugu guuleysan doonaa garoonka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Etihad Stadium anagoo ku ciyaarayna ugu dabaaldegi doonaa mar kale kugu celinaya haddaa muuqaalkan daabanaysid oo taageero Arsenal tahay muuqaalkan share gareey la wadaag saaxiibkaada oo u maleeya Arsenal inay weli preenka wado oo sanadkan Arsenal horyaal ay ku guuleysanayna saaxiibkaada aaminsan muuqaalkan la wadaag horyaalkan waxa ugu guuleysan doonaa Etihad Stadium anagoo ku ciyaarayna aan u dabaaldegi doonaa xilli ciyaareedkan biidhnillaahi baari qof walbo muuqaalkayga daabanaa muuqaalkan meel fiican gasho hadhow xusuus ku noqon doonaa kan adowga ah oo isdhahaya Manchester City Arsenal horyaalkan ka qaadi doonta ama Arsenal sanadkan mar kale malxiis noqon doonta qofka maankiisa ku jira muuqaalkan la wadaag taageero walba oo Manchester City taageera ama saaxiibkaada ka shakisan Arsenal liigan inay ku guuleysanayso muuqaalkan la wadaag si uu xusuus ugu noqdo waxaan ballan qaadaynaa garoonka Etihad Stadium anagoo ku ciyaarayna in Manchester City ma refereegeeda iyo wixii wadata meeshaas ku garacan oo horyaalkana bartaas ugu dabaaldego oo kugu celinaya Arsenal liigan Arsenal ku guuleysanaysa waliba garoonka Manchester City Etihad Stadium ugu dabaaldegi doonaa wax shaki ayuusan ka gelin wax absi ayaa lagu gelinin kooxda badinaysa soo badisa mid laga badinayn ha laga baday wax naga galay malaan laakiin horyaalkan waa Gunners waxaan ugu guuleysan doonaa garoonka Manchester City Etihad Stadium waliba anagoo Manchester City ku xasuuqi doono 3-1 kulan ku dhamaanaysa hordhacaan idin saadalinaya kulan 3-1 aan ku xasuuqi doono Manchester City anagoo ku ciyaarayno gegada Etihad Stadium ayaa ugu dabaaldegi doonaa horyaalka Peklis Premier League ee xilli ciyaareedkan qof walba muuqaalkayga daabanaya haddii Arsenal fans aad tahay ama haddii Manchester City fans aad tahay muuqaalkan labada mar buu ku anfacayaa wuxuu kugu anfacayaa beri hadalkan ku dhex meelay ku qoranay oo warkii Ilyas ii sheegay runay aheedaa leedahay kan mu'aaradka ah oo isdhahaya Arsenal liigan waa laga qaadi doonaana la wadaag oo ugu naxi runtana waa la muxuraane hadda gaarsii beri intuu maqli lahaa maanta ba gaarsii kan waa Gunners Etihad Stadium aan ugu dabaaldegi doonaa ee dadkan oo Liverpool loo qabtay saan ugu dabaaldegay waxaaba moodaa horyaalka inay maanta ku guuleysteen ha iloowin kan waa Gunners 6 point ana laga hayaa 6 dhibcood oo nadiif ah marka Arsenal family meel walba aad joogtaan muuqaalkan shargaray oo la wadaaga taageerayaasha Liverpoolna waxaan u sheegayaa guuleystayaasha saxda inay idinka tihiin ee Manchester City wax ay xalay meesha ku qabatay usan jirin aad baad u mahadsan